waalid ma ogtahay dhalinyaradeenna markaa eegto qaybahan Gen Z-da la yiraahdo 95 ama 97 dhamaadkoodii dhashay iyo wixii ka dambeeyay iyo jiilkan ku xigay Gen Alpha la yiraahdo sifo ay leeyihiin baa jirta oo la yiraahdo empathy af Soomaaliga waxay noqonaysaa ma aragtay la tacaaduf waxay la tacaadufaan wax walba haddaad u fiirsato mararka qaarkood wanaag ayay ka qaadan la tacaadufida oo dulmi ma ogolaan karaan masalan markay arkaan dhaqdhaqaaqan la yiraahdo Black Lives Matter dadkan bilayska ah ee wadamadan madowga iska leynaya way la tacaadufi way soo bixi way mudaharaadi baraha bulshada waxay ku qoranayaan qofkii madoobaa ee markaa la dilay sawirkiisa halku dhigi ay kamid yihiin I can't breathe Black Lives Matter qof madow gacanta sidaa leh iyo waxa sidoo kale arrimaha Gaza markaan eegno jiilka u badan waa dhalinyarada iyagoo Starbucks-ka aad u jeclaa oo kuwa noolaa ayay wada qaadaceen runtii way ka adkaysteen si ay u dhaawacaan ganacsiga qolada Zioniska ama Yahuuda waxaa arkaysaa marka mudaharaadyadaan lagu mudaharaadayo Yahuuda iyo Zioniska Gaza iyo Falastiin loo mudaharaadayo iyaga ugu badan waa sifo fiican la tacaadufiduna runtii asal bay diinteena ku leedahay marka shay xaq ah loo isticmaalo agoonta inaynu la tacaadufno waynu garanaynaa manzilada rasuul sallallahu alayhi wasallam gaarsiiyay masaakiinta in la tacaadufo oo yutcimuuna ta'aama ala hubbiha yadiha ra'ayta alladhi yukadibu bidin waa wada garanaysaan dhibka jira waxa weeyaan marka la tacaadufidaasi waxay la gashaa dhinac kale oo qoladan qoomuluudka ana waxay mararka qaarkood u arkaan dad la dulmayo way la tacaadufaan marka waalidiin fara badan oo Soomaaliya jirta oo runtii mararka qaarkood ku wareerto yimid runtii oo yiri waa sheekhu la hadal wiilkayga waxaan uga shakisanahay kuwan qoomuluudku ku biiray sheekhu la hadal gabadhayda waxaan uga shakisanahay qoomuluudka ku biirtay maxay waalidiinta arkeen waxay arkeen bisha June marka la gaaro oo qoladan qoomuluudka LGBTQ+ iyo waxay yihiin banaanka ay u soo baxaan calamadooda ayay screenka TV-ga surtaan qaarkood waxay xidhaan gacanta wax lagu xidho calankooda qaarkood t-shirtadooda xidhaan u fiirsa marka inta badan ma aha inay iyaga ku biireen ma aha ee waxa la galay la tacaadufida la gashay oo empathy-gaasi si khalada u fahmeen waxa marka badan dhacaysa marka waalidkii wuxuu moodayaa inuu ilmahan qoomuluud noqday marka dhowr caruurta kamid ah la sheekaysto waxay ku oranayaan they're just so cool I mean maxaa laga rabaa oh my god they're so nice people they're so respectful they're so kind I don't know why you guys are hating saasi ku oranayaan waa dad fiican waa masaakiin maxaa laga rabaa u fiirso ma aha gabadhani inay qoomuluud noqotay ma aha wiilkani inuu qoomuluud noqday laakiin sida ay Gaza ula tacaadufeen ay dhaqdhaqaaqa madowga ula tacaadufeen ee dulmiyo dhan aan u arki karin maadaama sensitive yihiin ayaa waxay noqotay seef laba aflo xaggaas la gashay marka waxaan rabaa waalidiinta inaan idhaahdo runtii inta badan saa u fahmo la tacaadufida iyo dhaqanka sensitivity-ga xagga la gala da'yarta waana waxaan aragnay and by the way markaad eegto characteristic-ga ama sifooyinka Gen Z-du ay leeyihiin waa qayb kamid ah inay yihiin the most sensitive generation Gen Alpha-na waa sidaas oo kale labada jiil marka labaduba waxay leeyihiin dhaqankan ah nuglaanshaha ama la tacaadufida ama sensitivity-ga aan cilmiyeysnayn marka waalidiinta insha Allah ta'ala allaha awlaada inoo xifdiyo laakiin waxaan rabaa qodobka inaan baraarujiyo inta badan waxaan arkay inay tahay caruurtan inaan qoomuluud noqonin laakiin ay noqotay maxay la tacaadufid ay la tacaadufayaan iyada lafteedu khatarteeda leedahay oo waan ognahay haweeneydii uu qabay nabiyullaahi luud calayhi wa calayhi salaatu wasalaam waa tii lagu daray dadkii la haligay la cadaabay sababta waa maxay waa tii markii guriga la yimid u maxaan ku dhahaayay lahayd dad baa yimid kaalaya marti baa yimid macni u advocate gareynaysay qoladii qoomuluudka ahayd ilaahina quraanka wuxuu inoogu sheegay in lala haligay qoladii marka ay u advocate gareynaysay u doodaysay ama ay ugu yeeraysay guriga marka insha Allah ta'ala shay qurux badan maaha caruurta waa inaan wax baroon uga digno laakiin waalidiinta waxaan rabaa inaan u sheego la tacaadufida ayaa caruurta meelo fara badan la gasha ilaahay caruurteena ha xifdiyo inagana ha xifdiyo wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah